agaasimaha guud ee komishanka xakamaynta HIV/AIDS ee Somaliland Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed ayaa maanta tababar dhinaca wacyigelinta xanuunkaasi magaalada Boorama uga furay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalada Boorama iyadoo ay dulucdu tahay in fariimaha wacyigelinta la sii gaarsiiyo ardayda wax ka dhigata dugsiyada. tababarkan ayaa waxa ugu horeyn iba furay isku duwaha komishanka xakamaynta HIV/AIDS ee gobolka Awdal Nimco Cabdi Xasan waxayna soo dhaweysay tababarkan. Salaamaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo chairman-ka ah komishankan la'aantiina ayna dhaqaaqdeen. waxaan sidoo kale salaamayaa agaasimaha fulinta Soolnaag. waxaan kala salaamay macallimiinta sharafta leh nagala soo qayb gashay kulankan. shaqaalahayga Soolnaag gaar ahaan qaybta wacyigelinta aad baad u salaaminta waxaan ugu salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan kaloo fursadan qaaliga kaga faa'iideysanayaa oo halkan ka salaamayaa agaasimaha wacyigelinta oo runtii ah shakhsi karti badan leh dardargelin ballaaran ka wada gobolada sidii looga wacyigelin lahaa heer gobol korna loogu qaadi lahaa wacyigelinta aad baad u mahadsantahay leeyahay. waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa agaasimaha daryeelka iyo daaweynta Maama Sahra oo ku hawlan sidii ay dadka daryeel ugu fidin lahayd 3 bilood kaste hadday tahay raashinkii qaranka ugu talagalay iyo hadday tahay hay'adaha khayriga ah ay ka soo qaado. maam jazakallah khayr baan ku leeyahay ugu dadaalaysa dadka xanuunka la nool. halkan ujeedada ugu weyn ee halkan iskugu nimidnay macallimiintu maadaama ay yihiin ay hayaan ardaydii lafdhabarta ahayd macalinkiina intaasoo xiisadood uu gali karo 6 xiiso markuu galo oo qof ka badan la kulmi karo. waxaanu ugu talagalnay inaad maanta wacyigelinta ballaaran ardayda aad naga gaarsiisaan maadaama aanan iskuuladii xabad aanan u gaari karin oo iskuuladii gobolka Awdal ku yaala ay bateen gaar ahaan Boorama. marka waxa naga kaafinaya inta macallin ee maanta ka soo qayb gashay kulanka ayaa naga sii gaarsiin doonto ujeedada ugu weyn waa taa. xubno ka shaqeeya wacyigelinta bulshada iyo macallinka tababarkan bixinayay ayaa iyaguna hadalka iska daba qaatay waxayna yiraahdeen cause of HIV infection maxaa sababa. HIV is found for the fluids of infected person. dareero qof infected oo xanuunkan qaba hadduu ku taabto xanuunka waa qaadaysa. talabaad HIV cannot be transmitted to sweets. dhiiska kale kuma gudbo xanuunka. urine kaadoo kale kuma gudbo saliifa xadhuufto kale. the most common way of getting HIV habka ugu caansan ee HIV ku dhici kara waxa weeyaan having vaginal